مدح يا ادمن كرا يا أمانة وديرا أبال يا كامرين كرا مؤبتهين بلاس كابلا وحايبة ونعضلي عمر قادة وايوكو الله عاسي وياكي كيران كدريكيو وساعدة إتنيو فريقة بوايوم دي استغفروا لدهاي فريقة بوايوم دي استغفروا لدهاي أهيها مسكعنا madaxweynuhu waa akhri Soomaaliland mucaaridka iyo muxaafidka isaystana taasiyo kuwa siyaasad u taala laakiin madaxweynuhu waa kii aan dhiiga u shubnay marka waxa weeye waxaan ka raali gelinaynaa oo xaal kaga bixinaynaa oo xuqaal ahaan iyo odayaal ahaan iyo gobol ahaanba aan raali ka gelinaynaa oo ka raali gelinaynaa madaxweynaha inaanan arrinka xildhibaanka gabilay ka soo jeeda aanan kula socon oo arrinka ka xunnahay marka waxaan leenahay xildhibaan arrinka de mucaaradku inta kale oo dhan si kale wuxuu dhigayay si kale wax loo eedeynay xukuumadahan iyo wasiirahanba wax lagu eedeynay laakiin isku baynaan ogeyn amba xildhibaanada kale kuma yahdal shakhsi weerarka madaxweynaha marka magaca Soomaaliland wax guda jooga iyo wax dibad joogaba waxa uu madaxweynaha ee meesha hadii la eeganaya ay ummadu dooratay waa madaxweynaha Soomaali marka waxa weeye bashir aday ku goori tahay inayo bashir arrinkaas waa arrin shakhsi u gooniya laakiin wax gobolku ka eedlayay aan kula soconno borjisna ka bixin weey marka odayada iga dambeyn doona raali gelinta gobol ahaan annagu sidaas aan leenahay naga go'aana aflagaadana aan u aragnaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعدي. أنا بوحن لها. وعوي هرتا بشير. حل معنا ذو كمديها. عد كستوب قبل لقى صوت دور تبى قرات كي يقوم بلتك تاميشه قبل كفرين ما صفروا وما يدا صداو هذا. sidaas aan horta xagga gobolka aan loogu nisbayn karin kolkaan xaggii gobolka aan loo nisbayn karin ka soo qaado waxa weeye nin kasta oo gobol laga soo doortayba wuxuu la tagaa garaadkiisu la tagaa marka horta gobolka ma quseeyo oo la oran cidii tiraahda ninka gobolka ka yimid oo xildhibaanaha madaxweynaha caay cidii tiraahdaa way qaldan tahay xildhibaanadu ka mid yahay waxa seen leeh oo u jeeda madaxweynaha Soomaaliland hadduu xildhibaan gobolkan yahay iyo ku burca hadduu yahay iyo ku awdala hadduu yahay iyo ku maxaan ku yiraahdaa laascaanoda hadduu yahay ku ceerigaaba hadduu yahay ninka xildhibaannimo isku sheega ama wax garad baayaan xildhibaanba noqonine أما عاقل هالنقض أما وحجرت كلا هالنقض أما سلطان هالنقض أما حلبان نما هالنقض فودونا بها هذا عدي مدحوينا Somaliland أنتو كرسي كفر ديو وحن عقل أهين وانقف متذكر يكون هذلين عدي كل هذا شبوان كتور جدنا السنة وحن لنا هاي بشير حلبان باتاي حلبان ندنا يجوا هالكاود الجوع عد والبقى والبال لقى صوت دورتي هذول نكوح قبل كا قيمة بدل مسوي جيدنا ولا وفانا هذول قيمة دريه وسوي جيدنا ولا جنحة هذا هو عن كل هاي وين هو واكيل دورتي سيدي الله دورتي وياي adigu adigay taas ceeb kugu tahay dad Bashiir tahay inaad dawladnimada maamulka haddaad mucaarid tahay maamulku sida wax loo maamulayo inaad wax ka sheegtaa معارضنما أصلا نظيفة وشيكتا معارضنما ذا هي كم تاي لكن أما مدحوينها هالنقطة
أما قف شخصية أو كلامها النقطة قف كونه قف فيك كعاية وحرام حرام ويا وحويا مامل بالله هذا يا مامل كسلا صوص على يسرع صوص على يونك معارض كيدا ما في بقى نقولنا لكن مامل كهذا يو مدحوينه وما كلمة وحا ترينا وان كحنا هاي أدبان وكحنا هاي في كلي ماذا قبل نبى القبيلة بقى لقى دورته ونقوم حبين هدي برا لقى دورتين كم مدحوينه أفلك هذه وان كحنا وأنا كسور جيبنا السلام عليكم الله قضوا يا رب كان بيا marka hore madaxweynaha waxaan leeyahay wadana madaxweyne sida aan ku dooranay iyo aqliga aan ku dooranay ayaad leedahay kuna maamusha wadanka taa intaasaan ka yiri ta kale afxumo waxay nabadna way fogeysaa colaadda hadalka bashiiri waa hadal kafa aad iyo aad meel uga dhacay madana madaxweyne waa loo raali galeynaa raalli ka ahoo baan ku leenahay hadalkaa annaga oo ah odayaashii mujaahidiintii nuqaashii waxgaradkii gebilay ayaanu kaa raalli gelinaynaa sidaa raalli ka ahow qolada ka hadashay burco iyo hargeysa ayaan in yar odhanayaa waxaan leeyahay guddoomiyaha baarlamaanka waa guddoomiye xusbi madaxweynuu doonayaa maadaama aad u hadasheen qabyaalad iyo qabiil madaxweynihii Soomaaliland ka doonayay waad ka jiidateen laaban leeyahay oo idinku soo saara madaxweynaha laakiin Soomaaliland teedii kale way ka gaabsatay nin walba xusbiyada kale waxay alla ka siiyo annagoo taageersan xusbi xaakimka oo yahay xusbiga ayaan uga soo saaray madaxweynaha maanta talada haya oo ku amaanayno ayaan raacsanaynaa laakiin xusbigii labaad ee soo raacay baa waad la hadleen reer baad ka dhigteen soo saara madaxweynaha iyo halkaas aan leeyahay waxa kale oo leeyahay mudane Ero xusbigii aad ka soo baxday sidaad kaga timid oo dogtay kalaad samaysayna cidii gacanta ku qabatay cidii kula samaysay waa dogtay ha noqonin ha noqonin baan ku leeyahay ninka هشي أوين محي هشي كيل عريس عباد جامع كل بعيد تكون عندها عون بقولها مرتين تاسع كوسة شيء مو أكو شغال لبويد ماذي حسب أنا السنة لو قبل مرة لهاي تيسويدي غير كنا اللي بهو قبضه كلها هاي أكو صوص ساران واد ما هتصنتهاي أنت أصلا سوق بتقولها وحلا مركو الرئيسة بلاد وحب ذي عندنا مانتل هاي بالله أمانة لكنك أمانتنا والله عركيا عندها عافمات كقبا ويركيا مدحوين أحمد محمد محمود سيرايو وما كلمه إن لقى عايو إذا عد يتيفي ووحنو قهي لقينا وحمدان يهي أمان إلمها يرئي إلمها ويني ماشو مرة يبالله بصعبتو مهيو عيب قف عايانا حلو حيالي يمالها هذا هو أفكا قفك كسو ساري وكعيه ninka lagu caayade waa la arkaya waxa leeyahay gobolka Gabiley uma laha hidde iyo dhaqan cahi tu madaxweyne iyo tu dawladeed iyo tu cilmi macaayo wali waa gobol miyir qabo beeraley oo degan oo beerihiisa iska qotoloodiisa iska maala wax la kala macaashiyo mooga waxa leeyahay madaxweynuhu ومدحوينه هرومركا ومدحوينه إفتينك ومدحوينه Somaliland أن ميل الأمريكيين كحاري حشيش كوضعيك ومدحوينه وعقلية وضط الله بالصي وعلينا وما قال موحى نك عيتمين وحوف عيتمين وجيب واف عيتمين دائما منها وحين تايدر أنا وحرين نجاهده في المياه أنتم الله ما أنتنا وحلين حلي مال وحلقة صوصار والسرية وحلينا أيها لقى صوصار يعني هو عيدي هم بلينيا واحد عي معها وحاستي واحد عي أو يجسوروا معها إما كانوا وانا قال كاكتين الكم دي بانها وضيّا دي بانها ما يقبل مرجع وحلا عيد مونا كسنة
أمان بولي مدحوينهم حولنا مركب بالقوميين والله عركي عندها عباح عندها عداد عندها خورة قبا عداد ما كان هو يحنون المركب يا جام والنور لو يفتين صدا وودك وناتي ودك يدوي يدلك يوعكستا واجب كيس كصباح وحنو لنا هاي برينا وانكو دوران دارتي وانكو جين ربكم الدقراض السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام. وحوي أرنتها بعد كهربنا أرنتها مدحوينها أفلقارنا وكيري نينكا بشير أنك نجسوج نجس كرسن ده واحد بشير حماية سومالي واحد ترى برول كريا برول يقول مسا أنك ده ونخصين إياه وحنا هاي مدحوينها بولجيس بانكاسين waxaynu wada shaqaynaynin madaxweyne maanta madaxweyne madaxweynihii halkan ka tahay haddii lagu caayo ood xun tahay dee tiibaa lagu caayo ood xumaan lahayd halkii kursigii kaaraamadan kuugu imid horeyna umaad aflagaadi iyo umaad mutaysan maantana maad mutaysan waxaana weeyi bashiir dee isagu bini aadamka ninba maskaxdiisa way ula ekaatay annagu se waxaanu ku leenahay boolojiis baanu kaasaynaynaa raalli naga ahow wanaaggii horeynu ku kulaniyo wanaagaynu ku wada joognay wax ku ilo bashiir aan noo soo qaadina wixii aan qabanee hore ama dibadaan joogna ama daakhilaan joognay taa wax ku ilo waa ninkii jibriil abukar ee aflagaada ka soo baxday u horreeyey weeye koobaad taa ku ilo عبد الرحمن بان له عيرو نبا إن كيسي يودي ليان من لقى قبته وحيري هيا قبلنا أبا يبان تلي أدي كان تام بكو اللي هتاد مدحوينها ما أنت الدولة يسهل شو إن أنا تكفر حموي أتكحماته وحلينا هاي ولا سلامية هاي شرعي أنا قلنا إنه هذا الله ندمعني هذا الكون وحوها de guurtidiiyo ku qayliyaan lahayno ma arkaysaa annagu degaan baan nahoo dadkan guuraaya ma ihine nabadgelyadu way nagaga culus tahay dadkan reer guuraaga inta ka annagu nabadgelyadu way nagaga culus tahay dee cadowgiibaa baqan kari wayno beerinooma guurto annaga nabad baana anfacda madaxweynaha kolba joogoon ayidno oonu la shaqaysanaana anfacda waxaan leeyahay annagu dhinaca iyagani وحدون هدان بيرت النبض وهلو شحادنا ما تقنا وإحنا ما تقنا كل هذا أنا كان نبض أنا بفلا مدحوينها هرينا دليل بمجد إنت بدل ما أنتنا وحلا يرنين أرجيسي بالو دعاء والله والله ما يدا ما أنتنا أنتي أبناء شرق بستي وحوين باقب صوما إنك صوت دينال وحسب صوت جارسية كقاعدة ودي واحد سنة دوتني haddana ilaahay wuu kugu garab galo si wanaagsan baad wax u qabataa waxaan adigana kugu waaninaynaa bashiir iyo cid walba ciddii ku aflagaadaysay ciddii wuxuun ku tidhaa waxaanu leenahay waan kaa taxsiinaynay kelimada waanu boolojiis baanu kaa siinay wixii horena noo soo qaado dee dadka buuggaa looga buugayagii horena noo eeg waxaanu ku leenahay aad iyo aad baan kelimada kaaga taxsiinaynay waananu aad uga xunnahay boqolkiiba boqol waanu ka xunnahay sidaasaanu leenahay waanu kugu kalsoonnahay madaxweynaha iyagii baa tahay inaanaad waxba noogu qaadayn ee dee annagaa waajibna saaran yahay inaanan aamusin haddaan aamusno inaan raalli ka nahay noqonaysaa sidaa darteed baanu u hadlaynaa madaxweynihii ummaddaa tahay lama taabtaan baa tahay waxaanu ogol lahay maaha sidaasaanu kugu tahniyadaynaynaa sidaa noogu samir oo boolojiiska naga qaadaanu ku leenahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعد. أنا بدين ما يهبل. وضياشي يقول فيي أيا آدو حقلي. وحلقة هذا يندوحها قضب كلية. قضب كعيدة. حلبان كيف قبلي لقى الشيء. وحمانتها عن السجون لمد
ee aan ka hadlayno ee aanu caddaynayno inaanaan arrinkaa ku raacsanayn gobol ahaan ee aanu ka xunnahay waxa weeye horta kelmadda cayda ah waxaanu leenahay xildhibaanka sidaa u hadlay cidna waxba ma yeelin laakiin mas-uuliyaddiisii iyo xildhibaannimadiisii iyo dadnimadiisii buu wax yeelay isagunbaa wax is yeelay madaxweynahana somalilan oo dhan baa ammaan u haysa iska daa gebilayow wixii la qabtay iyo madaxweynuhu wuxuu kordhiyey waa wax adoo aan maanta dee laga murmi karin lana dafari karin waxaanu leenahay oonu madaxweyne kuu sheegaynaa cay malihida waxaad leedahay ammaan reer gabiley haddaanu nahayna ammaan baad naga mudan tahay annaga xildhibaanka xagga iyaga ka soo jeeda ee ka hadlay arrintaasi cayda ah ku hadlayna waa iska hadlow inaygiri kii laygiri kuwaanu ku raacsan nahay maaha waananu kaa raali gelinaynaa waxaan hadalka ku soo koobayaa somalilan ha noolaato somalilan ha noolaato madaxweynaha somalilan ha noolaato axmed maxamed maxamuud siiraanye ha noolaato wabarakaatu waa salaanta u qiimo badan salaanta islaamka aniga oo odayaasha gobolka gabiley ka mid ah oo magacayguna yahay xasan cumar axmed kuwa ugu da'weyna ka mid ah horta ninka da'da weyn jaamacad wuxuu ka soo baxay jaamacadda khadka lagu dhigo ee kasbiga ka qiimo badan oo ururinaya ilaa 60 ilaa maanta waxaanu ka xunnahay oonu xaal kaa siinayna soomaaliga xaal baa loo odhan jiray oonu waxgarad odayaal cuqaal culimaaudiin ganacsato dhallinyaro mutacalimiin rag iyo dumarba waxaanu ka xunnahay aflagaadada ninka gobolka gabiley ka soo jeeda ee bashiir uma qalantid annaguna uma cuntano in farta lanagu soo fiiqo la idhaa ninkaasi waa reer gabiley fulaxantiisa ma mooge cabsi baa ka haysa baa layidhi haddaan ka warbixiyo sida aan sida gobolka gabiley ku caanbaxay ee hidiya dhaqan u ah ee maslaxada ummadda u ah ee ay ka mid yihiin reer gabiley reer miyiga reer gabiley waxa weeyaan dadka beero qodatada ah xoolo dhaqato reer guuraaya ma lihin oo duurgala ah dad xoolo dhaqato ah oo geela intuu dambi halkan ku falo halku doono ka baxaa jira annagu waxaanu leenahay waanu degannahay ninku kolkuu beer leeyahay uu beertiisa fiida ka bixiyo carruurtiisana iskuulka ku daro beertiisuna diiwaan gashan tahay kolka koobaad waa nin nabadeed allabari iyo roob iyo nabad buu ku jiraa dowladdana weliga iyo macayno waxaanu tabanaynana odaya ahaan iyo mutacalimiin ahaan iyo annagoo iswadanaanu toos ugu sheegay iyadoo aan seeflabood iyo hunguri degdeg aanaan lahayn oo annaga gaaja nama qabato oo dee waxbaanu beeraa waxa weeye madaxweyne raalli ahow islaamay horta madaxweynenimo wax la noqdo aakhirada waxa ugu fadli badan ninka ilaahay u doorto qofka ilaahay u doorto jannada adduunyadana waxa ugu magac dheer ninka calan iyo dal iyo dad iyo dawlad xukuma kolka dadku isku mid maaha nin la dhaliilo oo waxaa shaqsinimadiisa ku soo noqota ama magaciisii xaafadnimo ku soo noqda ama gobolku ku tirsan yahay ku soo noqda ayuu inankaasi ku dhawaaqay waxaasi kuma qabanayo naga mid maaha ninkaasi gobolku uu ka mid yahay
كما رأسين السلام عليكم قاشي يوضياشي نقول ريي أي هذا الكلام waxa meesha la isku yimid waa kelimada kaliya waxa leeyahay af ay tabeninkiisu ku yaala isagu bas ciibiyo madaxweynaha waxba uu dhiman leh sharaftii xildhibaanimo ama mas'uuliyad meel ka dhacay marka waxa leeyahay iyadoo waqti gaabay hadalkayga soo gaabinayo ya madaxweyne sidaa gabilay waxay qaadi kari waayeen hadalka ka soo baxay ninka gabilay ka soo jeeda waxa salalahay war qaranimo anu gudubno qabiilooyin ku gudubnay يا قبيل لو قاعد الحلبان وقف كذا طبيعة لو قاعد خاصة ولا هم وعب سوق بالقبيلة يا أنا هذا الكي بهذين مدح بينها سلام قالي أو سلامتي الإسلام كا أيام درنا السلام عليكم ورحمة الله مدح بيننا كلنا الشعب الرئيس السوداني لأنه بيكون هم قليلين لما نهمت هذا الكم متكسر لا حشة متكسر لا حدينا هو الضم قيام مدح بينين تابقوا وواقع السلام عليكم ورحمة الله waxaan meesha ka salaamay awqaasha gobolka ee isku timid ee culus isugu timid oo ka naxday hadalka madaxweynaha xildhibaanka Bashiir Leeyahay ku hadlay gobolku xalay muuseexanin oo hadal aan eegaynin ayaa ka soo baxay xildhibaanka sida la ajliyeed Siiraanyo waxa weeyaan gabilay halkay isla mareen iyo sidii doorashadiisi ka yeeshay waa la og yahay gabilay waa la og yahay halkay Siiraanyo doorashadiisi ka yeeshay waa la og yahay isaguna wax xumaanaha gabilay u hayo iyo wax aan ka filayna midna ma jirto nin hadlay waa nin iska hadlay oo waxa weeyaan dawladda kulmiye inta ay qabatay kursiga ayaa ma taqaanaa wax qabad iyo haykal dawladnimo intaas aan anagu aragnaa waxaan dadkii dadka force inta ayaan aragnaa haykalkii dawladnimo oo dhaqaaqay oo la isticgelinayo oo wax la qabanayo intaas aan aragnay si fiican baan u seexanaay imka marka shakhsi oo hadlay waa nin isagu naftiisa dilay waxba madaxweyne ka qaadi maayo madaxweyne iyo nin kasta oo caalamka ummadda hogaaminayana wax ku khaldama ma waayo waa shakhsi khaldamay oo meel isagu ka dhacay waxaan ku soo gaabiyay inaanu anagu madaxweynaha ka siinay raaligelin anaan xumaan u hayn qaasha علماء الدين وضياشة مجاهدين هالكن سويت واحد يكون صنما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا كذب وحن هضان هاي قبل كان قبلي يا وحنا هاي الحلبان قبلي قلنا شيء أفلقات دي كالصوب على أم الحوينة كلك عاي كاسيو أنو أرجله سومالي الله وحي له مهما وحليني ما نحشونين هو حمار مدحوينها ما قبطوا عي maxaa yeelay dalku intuu isagu joogay buu degay oo dhaqaalihiisu degay oo nabadgelyadu degtay ay uma qaranto Axmed Maxamuud Siiraani hanaara waxa weeye hase yeeshee xildhibaanka gabilay ka soo jeeday ba isagu iscaayay oo ka dhacay shagadii iyo magacii uu lahaa waxa weeye waxa kale oo sheegaynaa xildhibaanku waxaan u lahay kolkuu Hargeysa tago uu dadka ilbaha dhaxgalo muxuu ahaa wuxuu baray dimuqraadiyadda inta ayda iyo inta wanaaga iyo kala baran waa la hadlaa buu maqlay baan u maleeyahay xildhibaan ya markay kula gashay xildhibaan inaad madaxweynaha caydo oo sharaftii ummadda Soomaaliland oo dhan huwan xageed isku hadlaysa waxaan u maleeyahay inaad suuq dambe bareenin ma garatay annagana kuguma raacsanin arrinta bashir sidaa darteed waxaan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Siiraanyo waxaad leedahay toban biladood oo dahaba oo gobolku kuugu ballan qaaday hadii waxaan halka ka sheegaynaa odayaashii hore ama qaashii hore intay tiri ayaanu ku raacsanahay intayada kalena waxa weeye Maxamuud waxa weeye waa mara xariira nin taabto uskagayna ma ogol waxa weeyaan nin amaan mudaweey nin magac mudaweey nin Soomaali oo dhan Soomaaliland oo dhan wax u qabtay weey ma ogolin markaa nin aflagaada iyo cay iyo hadal ku keen ninkii xumay ninkii af xumooda isaga xun
gobolka Gabiley waxaan hambalyeynaa madaxweynaha bolojista siinayna raali gelinayna ninka xildhibaanka naga soo jeeday reer Gabiley hadaanu kuma raacsanin intii hore odayaashii horeeyay nagaga filan sidaas aan ku dhameynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi qaal mujaahidiin waxgarad sanadin cidii ka soo qayb gashay xafladda oo dhigto waa salaamaya mar labaadka waxaan doonayaa inaan anigoo ku hadlaya afka mujaahidiinta naafada halka fadhida kuwii u nafwaayay dalkooda kuwii u dhiigooda u huray kuwii dheecaankooda dhulka u qabtay kuwa agoomaha waxaan leeyahay cabdiraxmaan ciro iyo mujaahidkan muxuu xildhibaankan bashiir labadaba gaf baa ku samayseen qarankii Soomaaliland qarannimadii Soomaaliland dareenkii bulshada reer Soomaaliland ee boqolkiiba inta dooratay looga boqolkiiba 60 buu ahaa waa madaxweynihii ugu doorashada ugu codka badnaa qarannimadii Soomaaliland meel baad kaga dhacdeen qarannimadii iyo karaamadii gobolkana meel baad kaga dhacdeen aflagaadaad ku kacday taasna waa mid adiga ku kooban wata qaashi ka marxatay kacday wax karadkii degmada haddaan nahay mujaahidiintii gobolka u dhalatay oo ahaa asaasayaashii halganka lagu xoreeyay dalka Soomaaliland ee SNM ila gutadii afraad mujaahid Axmed Maxamed Maxamuud Siraay oo ah madaxweynaha qaranka uma qalantid kala xaal qaado mujaahidiintina waa kuwa uryaamidaha kuwii baaskilada lagu riixayay kuwii abaabcooyinka ku socday sidaasay ku dhan yihiin sidaasana garabkaaga u taagan yihiin sidii aad gudoomiyaha ugu hayd baad imankana ugu tahay madaxweyne waxaana leeyahay adigoo 10 sanadood ka sugeeyay mas'uuliyadii Soomaaliya ee masuuliyadda oo dawladdiisa barnaamij ku dul dhacday oo aan habeen u gaajoon dalka oo aan habeen u darayo oo habeen u silcin inaad maanta ku soo doorato oo aad isku daydo inaad maamuuskiin ku samayso madaxweynaha labaatan sanadood soo halgamay qaranimada Soomaaliya iyo madaxweynaha والله هو رسيبته odayaasha walmawdiinka dhalinyarada mujaahidiinta dhammaan inta codsiga ajiibtay ee halkan inay ka dhaleeceeyaan aflagaadii lafjabka ahayd ee xildhibaan Bashir ku hadlay inuu soo ayiday ee aad u xumaatay aad iyo aad ugu mahadnaqaya waa mahadsantihiin waxaan leeyahay gobolku maanta inta ka fadhida maaha nin walba gurigiisa ku calaysay dadkana waa dad beeraley waa dad dhulka qota oo nabada jecel dadka ma caayaan caayida xaraan bay ka yihiin cidna ma shahaadaan xoogooda maalan beertooda nabadgelyo ka jecel waxaan leeyahay horumar baad gaadhay way ku ayidsan yihiin way ku hambalyeynayaan waana ka raali gelinayaan Bashiirna waxaan leeyahay gobolku wuu ku baahan yahay halka halkaas aan maxkamad xukuumada waajibka ka maran halkaas aan madax waajibka ka marna codkaan siinaan ka soo daaci doona aadna ka raali gelinaa waad maasan tahay gobolku aad buu ku tixgelinay tixgelin ku haya gobolka ku doortay ay kuma quuray aadna wax nahay waad maasan tahay assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh madaxya edmanin kara ya amaanada u dira abalya kamarin kara Furu